مسؤولينta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolkan Gabiley oo ay kamid yihiin Cali Nuur aw Umar Dr. Ciise Sheekh Maxamed Warsame xildhibaan Xasan Axmed Maxamed Xasan Dhagjar ayaa ka hadlay guri uu kireystay xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina ku yaal magaalada Gabiley kaasi oo ay xarun ka dhiganayeen xisbigaasi balse xukuumaddu ay ciidamo soo duldhigtay wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay gurigaasi xisbiga mucaaradka ee wadani ee la duldhigay ciidamada xisbiyada xukuumad ahaan waan la wada shaqeynaynaa system baan ula shaqeynaynaa qalbaa la naga xidhay qalbaa la naga qaaday qalbaa anagu magaalada xisbiga kulmiye soo karaya inuu ka helo magaalada muxuu ahaa guri wuxuu u doonto guri kareysan meesha ma taalo ninka ereyada lahaa ujeedadu kala isaga shay waaraynu ogaan doonaa sababtoo ah umada fidna lama dhaxdhigo dhibaato lama dhaxdhigo aan meesha oolin balse ay cadaymihii soo bandhigeen isla markaasina ay tageen gurigaas oo ciidamo joogan halkaas oo laga hor joogsaday in ay gudaha u galaan sharciga haduu magarata shaqeyn waayay wax kala shaqeynay dad wax ku leedahay cadaalad iyo sharciga waxaan ogolnahay sharciga cadaalad du shaqeyn guriga aan kareysanay xoog lagu haysto oo golaan mayno inaanu xoog lagu qabsaday xoog haystaan xoog ku qabsadan arina sharciga dawladda uu alina shaqada maar waxaas wasiirka arrimaha gudaha amniga u qaabsan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda TV ka hadlo wuxuu sheegay in aan ciidan boolis aan lageyn guriga wadada kireystayalka Gabiley ku yaala marka ma waxay taasi noqonaysaa inuu wasiirku dalka ma war boohayn adoo waxa askari ciidan qarana waajibkaaga wad bidinaysa waa lagu xaliyay la soo galay laakiin dawladdu siday kala tahay baan la yaabanahay wasiirku wuxuu nagu leeyahay laga haysto waa la alla beedka haysta مسؤولينتني oo TV-ga caalamiga Kalsan TV kula hor hadlay gurigaasi ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa wasiirka amniga waxaan u cadeynayaa in wixii uu hadii waxba ka jiraan ku tilmaamay iyo nin anigoo sheekh beledka dadka afka isku keenaya saacadatu wasiir wata warqadii nootayada ahayd la laga kirey cidna ma dulmiyeyno aan jecelahay in dadka caqliga ka qabsataan laakiin in xoog lagu qabsado ma qorayaashii aqalka Soomaaliland oo dhan waxaan u sheegayaa inay ku yihiin warqadiina ay taata sababta ay caddayn doonaa loo taayadii ku wareejisay lacagta loo taayadii lacagta ku wareejisay oo loo kala kireysay oo gacantayada aan ahayn gacanta loo taayada ay liyongo horri doonaa marka ummadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa wasiirku wuxuu ku hadlaynay xaqiiqda ka fogtay caqliga ka fogtay islaamnimada ka fogtay saacadatu wasiir ila la cid dambigashay ma jirto waxaan maanta oo laba maalmood ay ka soo rigtay maalintii warqadda la noo qoray ilaa inta wax loo ixtiraamin inaan ummad iyo dambi iyo fidma iman haddii fidmada ay dawladdu ka dambayso dayada has weydiiso ku darayaa sayidna sanadkan kulmiya cadaalad darradaas waan uga dhintay kulmiya waxaan uga mid waa cadaalad darrada maanta arkana dadka lagu wax guri si sharci ah loo kareystay oo ninkii la haya xaqlihii mulkiilaha la ureeyay oo inuu tooyadii tahay oo lacag kala qaado 3 bilood si khadimay $400 waxaan magaalada lagu kareyn anigu guriyaha ugu badan magaaladan ku leeyahay haddana wax $400 guri iyo $500 meel alle meel ay ka jirtaa ma jirto waa hadiidaan baahida waxay doonaan baan ku kalnay haddana waxay abaalkii ugu bedel haddana yiraahdaan tan waxa la dhigo bakrinay mar dad dantiin waxaan kulmiyo ugu nimaday dadka caqliga laga qabsaday guriyaha laga ma qabsado waxaan leenahay qolada aan kulmiyo adan weynay dhamaatay waqtigiina u dhamaaday caqliga dadka laga qabsaday dadku way iska nabad galeen banaankaas dadku noogu codeynaa banaanka hadda gidaarada fadhiisan gidaarkaas lagu codeynaya caqliga dadka laga qabtay guri lama qabsadeen qolada maamulka heer gobol iyo heer degmada Gabiley inay u shaqeynayaan musharaxa ka shaqeeya xisbiga kulmiye ka shaqeynaya uma shaqeynayaan way ka shaqeynayaan fikirka inaad kula socotaa telefoon kula soo hadlaysin anigu waan ognay laakiin aqli bay ka tahay taas waxa dhex joogtaa maanta oo aad joogtay oog baad joogtay deereeraad digada guriyaha reeraha leh haddaad Gabiley reernimo ku sheeganaysid guriyaha aqlada ciidan dulliga muusow ee bari iyo hargeysa dhaaf meesida ku darsan xisaabta Gabiley inaan laguma soo baxayo kaliya kugu filaamayso Gabiley haddaan kaaga badinayna inaad ka adkaysataa baa ka wanaagsan
haddii ay qolada sacad hooda la sheegaysa go'aamadii maalintii dhibay jaamacadda ka soo saareen ee go'aamadoodii ay ka soo saareen ka mid ahaa in guriga Gabiley ka kaleystay wadani laga kireeyay ay ciidanka qabsadaan ku raadaan inay talo ku go'aamiyeen taa qolada hooda la jaamacadda la jaamacadda sacad musaay kaga dhawaaqeen waa go'aan muusow adig ku jebinaya ee wax kuma tarayaan war waxaynu qaadanay dimuqraadiyad waxaynu qaadanay in lagu takrabo fikro geesta kale mar aanu isku daynay in aan la xidhiidhno barasaabka gobolka Gabiley si aanu wax uga weydiino sababta ka dambaysa arrintani ee ciidamada loo duldhigay halkaasi ayaanay noo suuro gelin kadib xafiiskiisa oo uu ka maqnaa awgeed si kastaba haatee arrintani ayaa ah mid ugub ku ah geyga Somaliland iyo saaxadda waana mid loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan leh wax looga qabto waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga Kalson TV gobolka cagaaran ee Gabiley.